السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkiin Dr. Ismail Xadle maantana waxaan ka hadli doonaa midla wadaagi doonaa cudurka loo yaqaano calool adeeg ama constipation ama saxaro adeeg, kaasoo ah in saxaradii qofka ay ku adkaato ama musqul u galin wax ka yar 3 beri isbuuci. dadka waaweyn halka ilmaha laba jeer isbuuci wax ka yar ama 2 jeer ay galaan, taas ayaa loo yaqaano calool adeeg. calool adeega wuxuu qofka dareemi karaa in markuu musqusha galo saxaradii ay kasoo baxdo saxaro adag oo dhibaysa. markuu kasoo baxayo xanuun ayuu ka dareemi karaa, mararka qaar dhiig ayaa soo raaci kara saxarada. wuxuu kaloo dareemi karaa weli inaysan saxarada ka dhamaan oo musqusha waqti dheer ayuu dhex fadhi karaa qofka. maxaa keena marka? maxaa keeno waxa ugu badan oo keeno oo muhiimka ah saxarada inay adkaato waxaa waaye qofkii aan biyo fiican qaadan loogu talagalay oo weli ooman ama dehydrated ah, qofkii aanan qaadan cuntooyinka inta caloosha taga qolofta leh dhuuqa biyaha dhuuqa, saas qofkii saxarada uga keena aanan isticmaalin, in qofkii qof fadhigiisa badan yahay oo yahay ama uu qof waayeel oo xanuunsan oo kale jiifkiisa badan yahay ay tahay, ayaa waxyaabaha ugu badan oo keena caloosha. waxaa kaloo badanaa lagu arkaa haweenka uurka leh, taasoo marka uurka qeybihiisa dambe ama bilaha dambe ama 3 bilo ugu dambeyso trimester lagu arko ayagana inay saxaradii ay adkaato. haddaba qofka intaas markuu isku arko muxuu u baahan yahay si xanuunkii oo uga fududaado saxaradii hayse ugu imaato intii aanan u gelin daawo iyo wax looga hortaga ayaa jira, ama qofka ugu imaato saxarada uu u baahan yahay inuu isticmaalo. qofka waa inuu cunaa sida cuntooyinka dalaga laga helo wadankeena ugu badan oo qolofta leh sida qamadi, galley, diir, moos, babaay, timir. waxyaabahaas oo dhan waxay ku sahlayaan qoloftaas ay leeyihiin ayaa biyaha cabtid iyo soo dhuuqayso, sidaa daraadeed saxaradii si fudud oo sahlan ayay kaaga imaan kartaa. haddii ay waxyaabahaas wax ku tari waayaan waxaa u baahan tahay inaad dhakhtar u tagtid si lagugu qoro daawooyinka saxarada caloosha ka keeno, kuwaasoo kaa keeni doono saxarada si fudud, inkastoo aanan waqti badan in la qaado karin oo dhibaatooyin ayagan ay leeyihiin ayagale inaad ku saxrootid ay noqonayso. haddaba maxay dhibaatooyinka ay leeyihiin ugu badan? dhibaatada ugu badan waxaa waaye inay qofka ku dhaco hemorrhoid ama wax loo yaqaano baabasiir, soomaalidiisa u yaqaaniin nabar camal ayaa dabada ku sameysmo, kaasoo nabar ahayn laakiin caloosha waxay leedahay dabada waxay leedahay wax loo yaqaan xidido. xididadaas oo dhiiga kasoo qaada iyo kuwa geeya. waxaa dhacaysa marka in xididada meesha ku yaalay oo veniska ahaa weliba kuwa dhiiga soo celinayay ayaa marka qofka saxarada isriixo pressure saaro way diiqayaan, sidaa daraadeed dhiigaa soo galaya. markuu dhiig soo galo waxaa kugu sameysmaya hemorrhoid, kaasoo laga qala dadka ama qaliin looga sameeyo ama laga jaro, oo ah wax ay la dhiban yihiin ummadda. si looga hortago waxaa u baahan tahay marka in qofkii noloshiisa oo ka saxo cuntooyinka oo cunayo, asiga oo ku dadaalayo waxyaabaha qolofta leh oo hore aan usoo sheegay. waxaa kaloo muhiima qofka saliid macsaro iyo saliid olive oo kale inuu ku darsado cuntooyinkiisa si saxaradii ay uga jilciyaan ama caloosha ay uga jilciyaan, biyo badanna oo qaato. haddii aad isku aragto calool adeeg isbuuc ka badan waxaa u baahan tahay inaad dhakhtarka u tagtid si hadhow uunan kugu dhicin cudurka loo yaqaano baabasiir ama hemorrhoid oo dhibaatadiisa leh. asalaamu calaykum waraxmatullahi